madow oo saaxiibkay waa macallinkayga buu ahaa boqorku waxyaabo badan buu macallin loogu ahaa oo aanu ka qaadanay. macallinkuna wuxuu jecel yahay markuu ardayda wax u dhigayo in ardaydiisu ay najaxdo oo wixii uu dhigay ku najaxo. marka hadda waan soo dhaweynaynaa boqorka oo dee si fiican baa dalka loogu soo dhaweeyey, inkastoo aanu yara diiday isagoo boqorkii Afrika ahaa inuu dalkiisa cafis ku soo galo, cafis loo fidiyo. waxaanu arintaa nimanka yara biyo diiday. xamar baan tagaa, puntland baan tagaa, kismaayaan tagaa, jabuuti baan tagaa, etoobiyaan tagaa, yurub baan tagaa. dee dalkaygana anigu qof cafis ma weydiisto, soo mad garan. dee ajaani ma yihi, fiisana kuma soo galo. marka kulleyba duruuftaa keenayso. maanta waxaan dareemayaa arrintaa uu ku yimid ee cafiskaa la sheegayo inayna wax kale boqorka ka ahayne doorashada soo dhowaatay isagoon wax isku ogeyn, isbeddelka dalkan in laga shaqeeyo isku ogeyn, waddankan badbaadada in laga shaqeeyo badbaadada in la isku ogeyn. kulley duruufahaasun baa keenaya inuu cafiskii ku soo galo, laakiin cafisku muu soo galeene duruuftan baa keentay waddanka badbaadada dalka boqorka. leannu boqorka saalim aan u aqaanaa. boqorku waa nin ma og tahay kalsooni badan isku qaba, laakiin cafiska uu ku soo galay kulley baanu kuma soo galeen. laakiin ma in la xidhaa doonaysa markaa mar haddaanu cafis weydiisan maadaamuu dhaliilo xukuumadda u jeedin jiray? maya, wuxuu iman lahaa waddanku isbeddel yimid, laakiin dee duruuftaa keentay aniga ku yidhi oo isbeddel ku doonayna wax ka qaata baan anugu isiri. wuxuu ku soo galay waddanka leannu macallinka ayagu ahaa isbeddelkuuna nagu ma og tahay dardaari jiray oo sabuuradda noogu dhigi jiray inuu dalka isbeddel ka dhaco oo dee waddani loo codeeyo miyaad ujeedaa markaa? war aduu waddan isbeddelka waa muuse dee 7 sano ku filan, soo mad garan. 7 sano tu ka badan heedhe afrikaanku ma qaadi karo. muuse wuxuu u baahan yahay waa qof bila'aadana, waxa weeyaan rasad buu u baahan yahay. noloshiisoo dhan maruu militari ahaa, maruu soomaaliya ka soo shaqeeyo, maruu dagaaladii 7 ka qayb galo, maruu ka qayb galo tsnm, maruu tan ka qayb galo. qofkii dee xaq buu naftii ay ku leedahay. marka wuxuu u baahan yahay dee nasasho. marka hadduu garan waayo inuu isagu naftiisi nasto, in nasteexa la siiyo oo ummaddu ay u nasteexayso, oo reer somalilan nin jecel iyo nin neceb ay u nasteexeeyaan oo yidhaahdaan naso oo maskaxdaadan iska yara ma og tahay waxaad qof bilaadanaa tahay, combyuter kuma shaqaysade. marka isbeddelku xaggaa buu ka imanay. laakiin markaad leedahay anigu soomaaliyaan tagaa oo etoobiyaan tagaa cidna cafis ma weydiisto, boqor buurmadowna cafis buu dadka somalilan weydiistay iyo madaxweynaha, ma waxaad u leedahay adiga laylama hadli karo miyaad ujeedaa? anigu adeero waxaan ku yidhi waddan mid baan kuu sheegay axmed daahiro, boqor buurmadow mid baan ku kala duwannahay. anigu waxaan dhaliila waddanka dhexdiisaan ka dhaliila. anigu halkan joogaan dhaliilaya isagoo markuu joogo waddanka waa maxaafid. buurmadow waa maxaafid markuu waddanka jooga dhaliishiisu way yartay, laakiin dibadda wax ka buufiya. laakiin anu dibadda wax kama buufiyo, anigu waddanka gudihiisa. laakiin adigu dhaliilaha uu madaxweynaha u jeediyey ee ereyadayna ogeyne maqajaan ku jirtay, ereyadaasoo kale maba odhan kartid baan malinaya. warada boqorka inaga daayo su-aashan isagaan weydiinaya. dictionary-ga adduun weynaha waan ka baadhay maqajaan, qaamuuska soomaalidana waan ka baadhay. ninkan hadda boqor cismaan buurmadow wuxuu ku fiican wey taariikhaha ayuu hayaa. waa nin taariikhiyana, waa macallinkayga, soo mad garan. oo dhaliil ma laha, laakiin isagu kelmado waaweyn oo dadkani ayna garanaynba ayuu hayaa. laakiin anigu dee taa waxaan u malaynayaa waa tii cafiskii ku yimide maxaad adigu ii hordhigisaa? laakiin saaxib dad badani waxay odhanayaan boqor axmed imaan wuxuu leeyahay anigu cafis cidna ma weydiisto dalka, boqor buurmadowna cafis baa loo fidiyey. bal halkaa yaro jilci. aan kuu yaro jilciyo, xalkaa doonisid baan kuu jilcinayaa.
anuu in badan madaxweynaha xitaa intan u tegey baan ku idhi madax waad xidhaa boqorada iyo salaadiintiiye madaxweyne maxaad xidhi weyde marka malaa anigu igu yasaniyo oo tan ay ka baqayaan boqorka dhowr jeer baa la xidhxidhayo xadhigu soo yara dhidhami weli aanu xadhig ma arag cidday xidhi weyde marka meel lagu xidha doorisa dee maya haddii la xidhi lahaa waxaan ola war boqoradaad la mid tahay salaadiintaad la mid tahay marka aniyow mantiroode nabarkan igu dhacay ay dadku yidhaahdaan nabar kuma dhicin horta nabarka igu dhacay waa kana soo ma arkisid nabarka intan leeg baa ku dhacay maanta dhaweyd nabarkaabaa igu dhacay soo ma arkisid haddana waan iska cafiyo dee anigu koleyba raggu haddii madax dhaqameed iska cafiyaan soo maad garan